TV hagaha hiigsiga humaaga hirka iyo horumarka guud ahaan geyga geeska Afrika. Dhab TV. dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba aad joogtaanba waxaan ku soo dhaweynaynaa Dhab TV. halkani waa Dhab TV. waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamij xasaasi ah oo khaas ah oo uu marti noogu yahay Admiral Maxamed Cumar Cismaan. Admiral Maxamed Cismaan dhammaantiin waa ka warhaysaan qofku yahay taariikhdiisa iyo wax walba. waa hogaamiyihii hore ee ciidanka badda Soomaaliya. waa hogaamiyihii jabhadda xoreynta Soomaalida Ogaadenya. waa geesi qof walba uu og yahay waxa uu yahay. waxaan rabnaa inaan admiraalka aan ka wareysano taariikhdiisa, kadibna waxaan rabnaa in aan ka hadalno waxyaabaha jabhaddii Soomaalida xoreynta Ogaadenya ay samaysay, xaaladda guud ee geeska Afrika, iyo khaasatan hadda dowladda federaalka Soomaalida waxay ka saartay ONLF in ay tahay argagixiso. taasna fikirkiisa inaan weydiino, kadibna wuxuu Soomaali kula talin lahaa. intaan admiraalka aan ku bilaabo, admiraal ku soo dhawow marka ugu horeysa Dhab TV. waad mahadsantihiin, khayr allah hadsiiya Axmed Yaasiin. waa dhowahay, aad baad mahadsantihiin. waxaan ku soo dhaweynayaa Guleed Qaasim oo wasiir Guleed oo barnaamijka qaybtiisa hore noo daadihin doona. codka admiraalka dhinaciisa echo buu sameynayaa, haddii la yar gaabin karo way fiican tahay. Guleed ku soo dhawow. بسم الله السلام عليكم قدومي أذير واكو سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آدي بدو معتمدين خير الله يدسي. ما شاء الله. آمين ما شاء الله. هرتا سأن سؤالها أوجل نضدك بدن كود وحي حد كويق أنا هنا تهاي قدومي هراء أون لف. تاريخ أنت كسي هرايسا. سفي عن لومي أنا مركو محان ربينا دب الله ونو. waxaad ka tirsanayd saraakiishii sarsare ee dowladdii Soomaaliya ilaa burburkii. dowladdaasna waxaad ahayd taliyaha ciidanka badda Soomaaliya. marka su'aal yar baan rabay inaan kaa weydiiyo, haddii aad si guud ahaan nooga warrami kartid xilligii ay dowladda saa u jirtay, awoodda iyo kartida iyo maxaa la yidhahdaa saameynta ay lahayd ciidanka badda Soomaaliya, ma nooga warrami karta adeer? بسم الله الرحمن الرحيم. آد بعدين السلام يا وأنا تكون هاتنتين كلن كانت عاوي روقة من قابسين. ورنتي تاريخ فربان با الله صو مري وحا سورة ودائن وحيا فربان أي
in la gafgafo waa iska soo marka raalli waa laga ahaanaya haddii aan la yidhaahdo ciidanka badda wuxuu ka mid ahaa ciidamadii qaranka ayuu ka mid ahaa muddadii hore waxaan sargaal caadi oo ciidanka ka mid ayaan ahaa waxaan hayay aan ka shaqaynayay hoggaanka howlgelinta ciidanka badda ayaan ahaa intii muddo ahayd baan yani anoo sargaal hawsha ahayaa yaan ka shaqaynayay kabacdina waxa uu noqotay markii waxa la badbedelay in saraakiil ama sargaal ka mida saraakiishii ciidanka ku soo koray tababarada awoodna u lahaa inuu yani hawshaa qabto taliska ciidanka in saraakiisha laga dhex xiro marka qadarku wuxuu yani u noqday in aniga laysoo qabto oo la yidhaahdo ciidanka waa inaad hoggaamiso sidaasaan taliyaha ciidanka badda ku noqday muddo dheer baan ciidanka badda markaa aan yani madax u ahaa ilaa 5 sano ku dhowaad baan ciidanka madax u ahaa hadda waxaanu qabanaya 5 sano uun hawshii hoggaamiye ciidanku baahnaa baan qabanayay ama ha noqoto xag howlgelin ama xag tababar ama xag mataqaanaa abaabul iyo isku dubarid hawshii ciidanku baahnaa ama hawlihii taliyuhu uu waajibaadkiisa ahayd baan qabanayay runtiina waxaan isleeyahay muddadaas aan taliyaha ciidanka ahaa waajibaadkii isaaraa ama xilku iga saaraa ee ahaa hawshii talinimo sidii ugu habboonayd ayaan u qabtay ama aan ugu dadaalahayay yani haddee madaxda qiimayn karaysa ninka yani taliyaha qiimaynaya laakiin anigu waxaanu islahaa sidii ugu habboonayd yaan hawshaa u qabtay baan islahaa marka muddada 4 sano iyo siyaadada ayaan taliyaha ciidanka badda ahaa waajibaadkii taliyaha ciidanka badda oo fara badan aad iyo aad fara badan baan qabanayay hadba meeshiiga ku habboon baan ka qabanayay waad mahadsantihiin maasha allah aad baa u mahadsantahay taariikhda ciidanka badda hadda waa ogtahay burburkii kadib nidaam dawligii soomaaliya dib baa haddana loo soo dhisayaa haddana waxaa lagu howlan yahay sidii loo dhisi lahaa ciidanka badda soomaaliya marka intaan kuwa maanta aan gaarin bal in yaroo taariikha burburkii kadib waxaad weli ka mid ahayd saraakiishiisa sare ee dowladda marka idinkii oo saraakiishii sare ahaa burburkii kadib maxaa la kulanteen xilli waxaa jiray ma ogtahay ama wadamada kale loo tegayay oo immigration badan dibadda loo socday marka idinkii oo saraakiishii sare ahaa oo daawanaya wadankii inuu burburay in yar ma noo taaban kartaa waxaa la kulanteen intaa ka xasuusid runtii waa taliyaha ciidanka badda waxaa layga bedelay isaga oo ciidankii uu si fiican u dhisan yahay waajibaadkiisana si fiican uu u gudanayo uuna ka mid yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu ka mid yahay ayaa aniga layga bedelay ama ka tagay ciidanka badda markaas marka runtii intii ka dambeysay marxalad dheer baa ka dambeysay waqtigaas ciidanka badda aan ka tagay oo xilal kale oo kala gadgadisan baan qabtay marka ama ha noqoto xiriirkii dadweynaha iyo abaabulkii bulshada Soomaaliyeed ama ha noqoto hawlo kale ha ahaadeen hawlo dhowr oo kale ayaan qabtay intii mataqaanaa ciidanka badda ka soo tegay marka haddee waxaan qabaa runtii waxaa fiicnaan lahayd saraakiishii waagaana joogay intii burburka uu jirayna joogay inay su-aashaas ay inta waxay isbedelay ee ciidanka dhexdiisa iska bedelay saraakiishaasaa ku habboonayd lahayd in si fiican looga warsado
waxaan se qabaa in wax badan isbedeleen oo waagii hore ciidanku siduu ahaa ama xagga discibliinka ha ahaado ama xagga waajibaadka gudashadiisa ha noqdo ama xagga midnimadiisa wadajirkiisa ha noqdo iyo markii dambe uu ciidanku burburay ama dalku burburay wax badan baa isbedelaya wax badan baa isbedelay wax aad iyo aad u fara badan baa isbedelay xagga nidaamkii ciidannimo iyo wadajirkii iyo howlgalkii iyo wax badan baa isbedelay hase yeeshee waayahaas dambe ciidanku uu burburay ama ciidankiiba uu daciifay ama ay wax iska bedeleen anigu waan ka maqnaa oo hawl kala yaan jiro oo kuma aana dhex jirin ciidanka marka wax badan baa iska bedelay ciidanka waaga iyo intuu burburay kabacdi maya waa la garan karaa maya waxaan isdhahay bal burburkii kadib dabcan laakiin waad ka jawaabtay laba su'aal oo kale axmed yaasiin baan ku wareejin hadda waad aragtaa waxaad joogtay markii ciidanka badda taliyaad ka ahayd markii la dhisayey haddana waxaa u moodaa tii in dib loogu noqdo haddana la dhisayay ciidanka badda soomaaliyeed adigii oo maxaa la yidhaahdaa dee jabhadna soo taliyo u ahaa dabcan guddoomiye u ahaa howlgallo kalena ku jirtay 20 sano maxaa taa ah oo aad siin lahayd ciidanka badda Soomaaliya maanta oo haddana dib loo dhisayo maxaa tala oo siin lahayd ha noqoto nidaam ahaan ha noqoto discipline ha noqoto maxaa la yiraahdaa habkii loo maareyn lahaa qalabayntii iyo intaas ciidanka badda wuxuu ka mid yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed buu ka mid yahay wixii aan ciidanka badda u soo jeedi waa tala guud oo aan xoogga dalka Soomaaliyeed u soo jeedi ciidan markii la dhisahay ama ciidan markii la howlgelinayana waxyaabaha runtii muhiimka ah waa la garanayaa ugu horreyntii in ciidanku mataqaanaa midnimadiisa iyo wadajirkiisa iyo discibliinkiisu inuu yani mid sugan yahay oo hawshaas saraakiishii qaban lahaydna ay jiraan marka waan qabaa in ciidanku ama marxaladan hadda ama xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan inuu u baahan yahay yani dib u habayn fara badan waa sida aan maqlahayo inkastoo aan dee ku dhex jirin oona aan ciidankii hadda aan saraakiisha hogaamiye aan ahayn mar walba wuxuu u baahan yahay ciidanku discipliin adag oo isku xidha ciidanka dhexdiisa isaga iyo bulshada weyna xiriir ka dhexeeya weeye marka in ciidanka la adkeeyo discipliinkiisa aad iyo aad mar walba ugu talin lahaa discipliinka ciidanka in la adkeeyo taasina waa mid guudo ama haba noqoto badda ha noqoto ama ciidanka dhulka ha noqoto ama cirka ha noqoto waa talo u wada taalo weeye in ciidamada discipliinkooda iyo nidaamkoodii militarinimo in la adkeeyo oo mar walba yani xoogga la saaro aad iyo aad baan ugu talin lahaa in la soo celiyo dhaqankii militarinimo iyo dhaqanku ciidanku uu lahaan jiray waagii la asaasay iyo intii ka dambaysay ciidanku dhaqanku lahaan jiray in la soo celiyo waxaan qabaa inay aad iyo aad ay maslaxadda dalka iyo ummadaba ay tahay ayaan qabaa waxay badan baa isbedelay marka waxyaabaha badan ee isbedelo saameyn weyn bay ku yeesheen ciidanka marka ciidanku in uu xoogga saaro oo yani xoogga uu saaro sidii uu midnimadiisa iyo wadajirkiisa iyo discipliinkiisa inuu sidii mataqaanaa lagu xaqiijin lahaa ama gacanta loogu hayn lahaa in mar walba xoogga la saaro ayaan qabaa waxaan qabaa in dalka iyo ummadda Soomaaliya tiirka asaasiga ah iyo dowladnimadaba tiirkeeda asaasiga inuu yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadana waxaa saldhig u ah ama ay mataqaana mar walba saldhig u ah inay discipliin iyo midnimo iyo wadajir adag ay yeeshaan yaa lagama maarmaana marka talada guudun baanu soo jeedin lahaa in la adkeeyo dhaqankii iyo anshixii iyo discipliinkii iyo midnimada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in la adkeeyaa mar walba ku talinaya waad mahadsantihiin waa mahadsan tahay horta guddoomiye aad baan ugu faraxsanahay inaan ku wareysto in badanna waan wada shaqeynay
in badan wax badanna waan kaa bartay laakiin maalin Atlanta joognay ayaan xasuustaa heestan inaan daaraan doonaya kadibna aan su'aal kaa weydiiyo adigoo raalliga oo hees aan dareenkaaga aad u kicisay markii ugu dambeysay gudoomiye Axmed Gurey muuna dhimanin hadduu geesi idin kaco ma weynaysaan mataqaanaa xornimadiina heestan maalinaan Atlanta joognay aad bay dareenkaaga u dhigtay aad bay ku kicisay jabhadda Soomaalida xoreynta ogaadenya ayaa ka mid noqotay marka ugu horeysa dareenkaaga Axmed Gurey muuna dhimanin maxay kaaga turjumaysaa marka xigana ka hadli doonaa balort marka hore tan ku bilaabo gudoomiye waxa weeye waa hees wadani weeye oo shacbiga xusuusinaysa halgankii la soo maray ummadda Soomaaliya ay soo martay ama xornimada ay u soo martay ama midnimadii wada jirka u soo martay waa taariikh xusuusinaysa marka runtii shacbigu wuxuu ku heesaa markii ay hawlgal ama ay nidaamkoodii iyo wadanninimadoodii iyo xornimadooda markii ay ku dhaadanayaan heesaha noocaas oo kale ay ku heesaan ama heesaha yani dadkoodii geesiyaashoodii inay xusaan oo ay xafladaha iyo meelaha kulamada waaweyn ay ku heesaan yay dadku jecel yihiin siday u xusuustaan taariikhdii ummaddu ay lahayd siday u xusuustaan ama ay ugu dhaataan hadda ka bacdi inaynan yani waxba iska bedelaynin noloshiiyo taariikhdoodii weynaydeen waxba iska bedelaynin marka waa heesaha taariikhiga ah runtii shacbigu mar walba uu mataqaanaa uu ku dhaato onlef iyo xubnahooda maxaad kula talin lahayd onlef waxa weeye waa jabhadda waddaniga xoreynta ogaadenya jabhaddaas ujeeddo yay ahayd oo loo dhisay ujeeddadeeduna waxay ahayd midaynta qaranka ummadda Soomaaliya in la mideeyo yay ujeeddada ugu weyn ay ahayd waxa ay ahayd in Soomaaliya iyo wada jirkeeda la xaqiijiyo ayay ujeeddadu ahayd waxay runtii ahayd in qaybaha maqan ee dalkeenna waa la qaybsaday sidii aynu wada ognahayba qaybaha maqan ee dalka in lagu raadiyo yani hadba habka suurtagala in lagu raadiyo haddii ay muuqato in nabadgelyo aan lagu raadin karaynin yani Soomaalida ama qaybihii kala duwan ama qaybihii la gumaysanayay gumaysigu u haystay aan nabad lagu raadin karayn in xoog lagu raadiyo marka jabhadda waddaniga xoreynta ogaadenya waxa loo asaasay waxay ahayd ama waajibaadka ugu muhiimsan ee loo asaasay waxay ahayd in ay xornimada Soomaaliya inay xaqiijiso oo ay raadiso hadba sida suurtagala haddii nabadgelyo lagu raadin karayo haddii lagu raadin karayo hab mataqaana wada hadal iyo wada xaajo haddii lagu raadin karayo in lagu raadiyo hadda ina suurtagalayno taas ayna suurtagalahayna in yani
habka aan laga maarmaynin ee xoogga in lagu raadiyo jabhaddu yani runtii ujeeddada ay iyadu qaadatay waxay ahayd ama u muuqatay in aan Ethiopia ama Soomaaliya qaybaha gumaysigu haystay inaan si maslaxada aan lagu helaynin baa u muuqatay saas daraadeed baa jabhaddan loo asaasay jabhaddan markii mataqaana la asaasayna runtii waajibaadkaas bay xoogga saartay siday u gudan lahayd ilaa haddana way wadaa jabhaddii howlaheedii waxaana u muuqata haddii nabadgeliyo wax lagu raadin karaya in nabadgeliyo lagu raadiyo haddii ay taas ayna suurtagal ahayna in sidii haddaba ururkan loo dhisay in lagu raadiyo habkii ayn laga fursanaynin in shacbigu ku raadiyo marka waxaan qabaa jabhadda waddaniga horeynta ogaadeenaya kaalin aad iyo aad weyn bay ka soo qaadatay sidii xornimadii Soomaaliya ama midnimadii Soomaalida loo xaqiijin lahayd kaalin weyn bay ka soo qaadatay dhinaca kale xagga siyaasaddana isku dayaal fara badan ayay isku dayday sidii mataqaana looga badbaadi lahaa yani dagaal foolka fool inuu dhaco oo marar fara badan wada hadal iyo hab wanaagsan in mataqaana lagu xalliyo yaa la isku dayay waxaase muuqatay inaynan yani arrinta ama Ethiopia arrintaa aynan mataqaana dheg jaro siinayn waa midda keentay in jabhadda la abuuro jabhadduna waajibaadkeedii way wadataa waxaan qabaa inay yani si fiican inay u wado haddana hada sida aynu ognahay waxa ay jabhaddu ay go'aansatay ama go'aankeedu waxa weeye in mar walba xornimadii ummadda Soomaaliya la helo haddii mataqaanaa hadba sida ay ku suurtagelayso in lagu raadiyo haddana waxa weeye in nabadgeliyo iyo hadal lagu raadiyo yaa la goostay waxaad moodaa go'aan labada dhinac Ethiopia iyo mataqaanaa Ogaadeniya waxay go'aansadeen inay wada hadal lagu raadiyo hadse yeeshee waxaad moodaa inaan weli yani arrintaas sidii loo fulin lahaa aynan weli aan la hirgelinin marka ururka ONLF way ka go'an tahay inuu xornimadii Ogaadeniya uu raadiyo way ka go'an tahay marxalado fara badan oo kala duwanna wuu u maray haddii alla yidhaahdo waxaan se qabaa inay ama se yani hadda mataqaana go'aanka ugu dambeeya waxa weeye in nabadgeliyo iyo wada hadal lagu raadiyo waxaanad moodaa weli inay Ethiopia ka leexleexanaysa arrintaas sidii loo xaqiijin lahaa taase waxaa u taalaa jawaabtaas ururka ONLF iyo madaxdiisa u taalaa sidii mataqaana ugu habbooneed ugu jawaabi lahaayeen waa jawaab mug ah gudoomiye su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxa weeye madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar maxaad kula talin lahayd Mustafa waa madaxweynaha kilalka ama Ogaadeniya waa nin dhalinyaro oo aqoon-yahana ma lihin choice kale oo runtii aynu ku talino inagu ma lihin waajibaadkiina hor yaalla aad iyo aad buu u ballaaran yahay waajibaadkiina hor yaalla ee koowaadna waxa weeye xuquuqdeedii oo dhammaystiran inay hesho yaa kow ka ah xaqiiqda arrintaas sidii lagu dhammaystiri lahaana waxaan qabaa in ummaddu ay u midowdo marka waxaan runtii ku talin lahaa in madaxweyne Mustafa uu ku dadaalo sidii uu u midayn lahaa dowladdiisa iyo maamulkiisa jabhadahana uu soo dhoweyn lahaa isaga jabhaduhu ay yani inay midoobaan oo mid ay noqdaan sidii ay u raadiyaan ummadda Soomaalida xornimadooda si loo raadiyo ama nabadgelyo ha lagu raadiyo ama si nabadgelyo darra ha lagu raadiyey in
jabhadaha iyo maamulka jira mataqaanaa jabhad inay midoobaan oo ay raadiyaan sidii ummadda Soomaaliya hadafkeedii asaasiga ahayd ee qaranimada ahayd in ay u helaan taasana runtii kula talin lahaa arrintaana Mustafa kaalin weyn buu ka qaadan karayaa waxaan qabaa in haddana la isku dayo waxyaabo fara badan in la isku dayo oo jabhaddu ay arrintaa dowrka ay aad u jeceshahay in uu fulo Mustafana uu yani hadda ka hor arrintaa uu ku hadlay marka in arrintaa la hirgeliyo oo midnimada iyo wadajirka ummadda la hirgeliyo si qarannimo lagu helo iyo xornimo lagu helo wasiir Gule codka waxay الله هذا وانا انا وحنا قدومي aad iyo aad ba u mahadsan tahay su'aal aad fara badan waan ku weydiinay jawaabo ballaaranna waan nasiisay runtii way aragnimadan ka faa'iideysanayno ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysanaysana oo marka lagu weydiiyo maxaa tala ah dabcan marxalado badan baad soo aragtay dowladda Soomaaliya oo la dhisay ba u joogtay ciidankii oo la dhisay ba u joogtay kadibna jabhaddii oo waji kala qaadatay oo maaragtay ayadana si ciidan ahaan loo dhisayna waa u joogtay anna moogtay arrinta ay taabatay adigoo nin ciidan ah oo sarkaal ah ayaad waxaad ka hadlaysaa nabad iyo wada hadal iyo in la isfahmo marka taasi waa in la wada fahmo faa'iido ay leedahay in la isku yimaado oo la isfahmo oo maaragtay gacmaha la isqabsado arrinta kale oo igu soo laabatay aan rabaa inaan kugu soo celiyo had iyo jeer waxaad tiri jooxo waxaa loo sameeyey inay xaqiijiso xorriyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waana isla jawaabtii aad ka siisay markaan ku weydiinay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya marka waxaad u moodaa aragtidaada waxaad markaa leedahay dalkeeni waa la kala qaybiyey isleedahay weli dalkii uu kala qaybsan yahay oo intaasoo wadan ayaa la geliyey mise ma isleedahay hadda intii NFD ahayd oo 3 county noqotay iyo dowlad deegaanka hadda oo Mustafa uu madaxweyne ka yahay ma isleedahay afartaas ama in marka laba laga dhigo wada waxay saariin xornimadii ay u socdaan mise waxa isleedahay weli waxa dul saaran maxaa la yiraahdaa waxay weli huwan yihiin bustihii gumaysiga واحدة دستين وابن هيرونتي سوماليا أما واكيل قيبي كويسي وكلا قيبي قيبة بنا واكيلو كلا قيبي إلى واقاس إلى هبدا وها ورشها أما دولة سوماليا هنقطة أما بل يرى قنان كتشوفت أقويان هنقطة وتشددود وحوي أما هملدود وحوي إن سوماليا أو مدى اللي Soomaaliya oo hal qarana in la helo yaa la doonayaa weli simayna arrintaas ayna hirgelin ma hirgelin waajibaadka dowlad kasta oo Soomaali ah ama magaca Soomaaliya sheeganaysa waajibaad saaran waxa weeye midnimo iyo wadajir iyo qarannimo in la xaqiijiyo waxaasan qabaa culaysyo fara badan baa ka sokeeya ama yani dhibaatooyin fara badan baa arrintaasi yay leedahay marka hadba intii joogta ee mas'uuliyiinta waajibaadka saaran waxa weeye wadajir iyo qarannimo midaysan in la helo hadba waajibaadkaas wuxuu saaran yahay intii mas'uuliyad dowladda Soomaaliyeed ayuu saaran yahay Mustafa uu saaran yahay dowladda Soomaaliyeed buu saaran yahay inta banaanada joogta ee gumaysiga weli ku hoos jirta ayuu saaran yahay waa waajibkii xoogga dalka Soomaaliyeed loo asaasay kaasoo ahaa waajibkii jabhadahu loo asaasayeen jabhada ama u abuurmayeen sidaasoo ahaa welina waa arrin taagan weeye marka shacbiga Soomaalina himilada iyo diilada marra ka suuri maayo ma ka tagayo midnimuu rabaa Soomaalida xornimuu rabaa qarannimuu rabaa qarannimo iyo midnimo
iyo mataqaana xornimo raba marka arrintan waa hawl adag aad iyo aad u adag weeye culays badan iyo qorshayaal fara badan bay u baahan tahay hadda waxaan rajaynayaa intii mas-uuliyadda leeyahay inuu fududeeyo hawshaas siday u fududaayeen waad mahadsantihin maasha allah gudoomiye aad iyo aad baa u mahadsan tahay jazaakum allah khayr xaggana inta gabagabadeeni way waa dhammaynay haddii aad wax ku daraysidna way ku jirtaa haddii kaletana halkaasaan ku joojinaynaa waxaan ku rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaad qab waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigu waxaan keliyata ku darahayaa ummadda soomaaliya weli arrintaas iyo xilkaasi uu saaran yahay mas-uuliyiinta soomaaliya ha noqoto jumhuuriyadda ama dowladda ama ha noqoto kuwa jabhadaha ah ama ha noqoto kuwa weli gumaysiga ku hoos jira weli xilkaasi uu saaran yahay xilkii in ummaddii soomaaliyeed oo loo kala qaybiyo oo shan loo kala qaybiyo in la mideeyo xilkaas waa xil taagan oo joogta ah xilkaasina hadba inta mas'uuliyiinta ahee yuu u yaallaa waxaan qabaa waa waajib aan inaga dhacaynin weeye waana waajib aan la gudan karin aan iska imanaynin xornimo iskama iman karayso midnimo iskama iman karayso waxay u baahan tahay qorshe iyo hawl aad iyo aad u adag bay u baahan tahay xilkaasina wuxuu saaran yahay mas'uuliyiinta joogta iyo aqoonyahanka iyo inta soomaaliyeed ee hadda meel kasta ay kala joogaanba hawsha yuu saaran yahay ilahay waxaan ka baryayaa ilahay inuu fududeeyo waxaan ka baryayaa ilahay inuu midnimadii soomaaliyeed xaqiijiyo waxaan ka baryayaa in gumaysiga iyo waxyaabaha inagu dhex jiraan ilaahay inuu naga qaado saas ayaan ka baryayaa waanad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazaakum allah khayr gudoomiye maalin wanaagsan waana soo wada xirinaynaa insha allah aad baad u mahadsantihiin khayr ilahayn siiyo insha allah kulan dambe oo xiisana isugu iman doono haddii alle Goblan hooyaday tahay maxaan goobtay